Assalaamu calaykum. Khuraafaad iyo khuraafaad. Meeqa jeer ayaa WhatsApp lagu soo diray cod ama qoraal sidaan ah. Ilaahay ayaan kugu dhaariyay sii gudbay. Haddaan sii gaarsiinin dadka, musiibo ayaa kugu dhici. Haddii aad Ilaahay jeceshana like ii saar. Haddii aad rasuulka jeceshana sidoo kale like ii saar. Waxaan ku jirnaa waqti isgaarsiinta meel wanaagsan ay marayso, taasoo ku ogolaanayso hal taabasho kumanaan qof inaad wax ugu dirto. Waa arrin wanaagsan laakiin wato dhinaciisa mugdiga ah. Qoraalada iyo fariimaha sii gudbinayso haddii aadan ka fiirsanin waxa ay yihiin, aadan isweydiinin maxaan u dirayaa, oo wixii lagu dhaho faafi aad sii faafiso, waxay ka dhigan tahay in aad ka tanaasushay caqligaaga iyo dadnimadaada, ku dhacdayna godka bahda khuraafaadka. Waxaa jiro qoraalo iyo fariimo badan oo maalin kasta Facebook, Messenger iyo WhatsApp-ka nagu soo gaaro, laakiin xambaarsan khuraafaad, diinta iyo caqliga lid ku ah, axaadiis dad ujeed gaar ah sameeyeen, kadibna si been abuur ah ay nebiga u nisbeeyeen. Sida hadda lagu soo diro qoraal kadibna inta dambe laga raaciyo rasuulka wuxuu yidhi qofkii dadka sii gaarsiiyo wuu liibaan, wuxuuna heli khayr iyo lacag badan. Ama haddii aadan faafin, shar ayaa kugu dhici. Waana arrin been abuur ah oo aanan jirin. Weligaa ma ku soo gaaray qoraal ama cod ah haddaadan sii faafin, ogow in shaydaanku kaa reebay. Dhammaan fariimahaas noocaas oo kale ah waa fariimo dad aanan diin iyo alla ka baqba aan aqoonin, kadibna dadka sii qaateen. Ma jiraan waxa la yidhaahdo haddaadan sii faafinin, ogow in shaydaanku kaa reebay. Waxaa sii dheer fariimaha dhaadheer ee sheekooyinka bugta ah, codka qofka ku dhaarinaya ee leh Ilaahay ayaan kugu dhaariyay sii gudbay. Qofka codkan duubaya haddii ay Ilaahay dartii kaa tahay in aad wanaagga faafiso, ha ka dalban dadka in ay sii gudbiyaan. Hana dhaarin dadka wixii anfaca ama ay jecel yihiin ama cajabiyo, ayaga ayaa si iskooda u faafinayo. Waxaa ka sii daran in ammaano aan jirin luqunta lagu geliyo, inuu ku dhaho waa ammaano korkaaga saaran, sii gudbi. Waa cod asiga uu duubay oo wax aanan sax ahayn uu ku sheegayo. Diintu sidaa ma ahan. Diintu ma ahan diin ay hogaaminayaan dad aanan caqli lahayn. Diintu ma ahan badeecad raqiis ah oo qofka si sir ah ama si kadis ah loogu iibinayo. Diintu ma ahan badeecad baartay oo qofka lagu socodsiinayo. Diintu ma ahan badeecad suuqa taalo. Qofka Ilaahay dartii kelmad u soo gudbinayo ma dhaariyo dadka, kumana qasbo inay sii gudbiyaan. Aniga ka cadiftaax ahaan, run ahaantii waxaan la noolahay waa mujtamaca Soomaaliyeed. Waxa igu dhaliyay inaan soo gudbiyo ayaa ah markaan arkay fariimo noocyo badan oo kala duwan sida aan kaga soo hadlan oo kale. Runtii waxa igu qasbay inaan dibulgedgareeyo muuqaalkan. Waxaana walaalkayga Cumar Inshaaraan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan oo inuu soo gudbiyay. Anna aan jeclaystay inaan aan la sii wadaago dadka walaalahayga. Haddii aan u imaano kommentiyada aan muuqaaladeena hoostooda ku aragno, sida haddii aad nebiga jeceshahay like ii saar. Arrinkaasoo ah in qofkan qiimo uusan u haynin rasuulka, in qiimihiisu uu la mid yahay like in loo saaro. Qoraal uu qoray inaad sumcadda iyo qiimaha rasuulka ku dawarsato like waa arrin aad iyo aad u liito weyaan sidoo kale. Assalaamu calaykum.